gabar Hindi ah ayaa jartay 100 kiiloomitir iyada oo adeegsanaysa baaskiil si aabaheed oo xanuunsan ay dib ugu soo celiso hoygiisa. Waxaa lagu tilmaamay safar halyeynimo ah oo ay ku badbaadinaysay waalidkeed xilli ay taagan tahay xanibaada xanuunka safmarka ah ee corona. Aabaha dhalay Jyoti Kumari ayaa ku dhaawacmay shil gaadiid markii la daweeyay kadib ayay gabadha 15 jirka ah iibsatay baaskiil ku kacaya $20 si ay ugu celiso gurigooda. Warbaahinta CNN-ka ayaa qortay sheekada gabadha ayaa si weyn u shacbaxday iyada oo ka mid noqotay dadka lagu hadalhayo baraha bulshada. Waxa ay ammaan iyo bogaadin kala kulantay gabadha oo dhalay madaxweynaha Mareykanka Mohan Baswam ayaa ku dhaawacmay shil gaadiid bishii Janaayo ee tagtay. Waxa uuna deganaa gobol 700 mayl ka fog hoygiisa. Shilka kadib Mr. Mohan waxa uu u baahday daryeel caafimaad oo loo fidiyay, laakiin nasiib xumo ma uusan awoodin in uu guriga ku soo laabto. Sidaa darteed, gabadhiisa dhiiran ayaa u jartay masaafo dhan 1200 kiiloomitir si ay dib ugu soo celiso hoyga. Talaabooyinka xanibaada ee ku saabsan xanuunka safmarka ah ee corona ayaa kala jaray xiriirka dad badan.